shacabka ku nool magaalada Burco ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Ibraahim fikirka ku saabsan kulanka ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kulanka anigu aad iyo aad baan uga soo horjeedaa waa kulan qadiyada Soomaaliland iyo madaxbannaanideeda meel kaga dhacay oo ka soo horjeeda Abiy Ahmed maaha waa nin aan aqoonsanayn Soomaaliland waa nin in badan ka madax adeegay waa nin wada qaabkii Soomaaliya loo mideyn lahaa madaxweynaha waxay ka wada hadleen waxaaba ku jira waxaaba muujinaya in Soomaaliya laba midoobo ama lala hadlo ama xiriir iyo cilaaqaad wanaagsan lala samaysto taasna waxa la aqbali karo maaha madaxweynuhu mid uu ku degdegay waan ku qaldamay Itoobiya xiriirka aynu hore u lahayn ee soo jireenka ahaa ee caanka ah hadii ay halkeedii ka wadayso oo xiriirku ku yahay waa soo dhaweynaynaa waana taageersanahay laakiinse hadii xiriirku mid ka duwan yahay oo ah inay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada shaqeeyaan waa mid aan ka soo horjeedo haday wada shaqeynayaan yaani u sii marin Abiy Ahmed iyo cid kale waa inay iyagu toos u wada shaqeeyaan iyagu wada hadlaan waa iyaga Soomaaliya Wallahi ta'ala barakaatu magacaygu Shaafici Dhiibsane haddii aan cabiro ra'yigayga ku saabsan maaragtay madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya aniga aragtidayda waxay la tahay inaanay wax badan soo kordhinaynin marka laga tago in maaragtay ay jirto dan Itoobiya ay leedahay oo ay u sii marayso Soomaaliland ayuunba ugu weyn baan filayaa kulanka waxaan u arkaa runtii Muuse Biixi uu ku tagay dalka Saba oo kula kulmay Abiy Ahmed runtii horta handaraabka iska furo iyo ma sha Allah way maxaan ku dhahday waana waxay noo soo kordhay waayo dalka Itoobiya danaha Soomaaliland aad bay ugu xidhan tahay waayo wax kasta oo reer Soomaaliland haday tahay mid kasta oo inaga xidhan tahay dib saboorta haday wax kasta haday duulimaad haday ganacsi tahay intaba runtii way waxyaabo badan baa inaga xidhan inaga muddo imka intii uu haystay Muuse Biixina xiriirkeenii hore runtii aad buu kala furmay Itoobiya bal marka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haduu maxaan ku raday talaabada uu qaaday aad baan ugu hambalyeynaa oo soo dhaweynaa laydhaas inaga hadayna reer Soomaaliland way ugu fooreysay anu waxaan u arkaa ninkii loo jeedo Muuse Biixi in arrinka uu aqbalayo in aynu noqono Soomaali weyn oo Soomaaliyeed lagu khasbo oo wada hadalkii bilaabmo ayuun baan u arkaa in maanta aynu baryoobtamayno ayuun baan u arkaa hadayna reer Soomaaliland Muuse Biixi madaxweynaha waxaan u sheegayaa waxa la yiri Soomaalida waxa ku maamaadaa ninkaad kabaha ka tolanaysa kibiisa leeyaga bali waxa weeye maanta Soomaaliya horta waxa lagu naaloodaa marka hore ugu wacan waa nabadda haddii qofku nabad waayo wax allaala wuxuu cunayo waxba uma aha marka waxa weeye inagu nabad baan ku soo toosnaa alxamdulillah baan ku jirnaa maalin walba qarax maana arago alxamdulillah baan ku jirnaa